General Waldhauser ayaa xubnaha guddiga ciidamada ee aqalka wakiilada uga jawaabay su'aalooyin dhowr ah oo ku saabsanaa guud ahaan howlgalka Africom ee qaaradda Afrika. General Thomas Waldhauser wuxuu sheegay in howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya uu qayb ka yahay dadaalada caalamiga ah ee lagu caawinayo Soomaaliya si buu yiri ay dadka Soomaaliyeed u dhammaystirtaan dhismaha ciidanka qaranka. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay weli khatar ku yihiin Soomaaliya iyo gobolkaba, isaga oo tusaale u soo qaatay qaraxii 14 Oktoobar ee sanadkii hore lagu weeraray isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux. ma dhahayo khatari way dhammaatay, laakiin innaga oo ku salaynayna qaar ka mid a howlaha aan qabanay oo ay barbar socdaan wada shaqaynta saaxiibadeenna kale ee caalamka ayaa waxaan dhihi karnaa taasi waxay sababtay in Al-Shabaab ay isku dayaan inay maamulaan dhul yar. 14 Oktoobar xaqiiqdii waxaa jiray qarax weyn oo ka dhacay Muqdisho, kadib waxay maqnaayeen muddo 4 bilood ah. haddana dhammaadkii bishii Febraayo waxay qarax ka sameeyeen Muqdisho. marka kooxdan weli si buuxda loogama guulaysan, laakiin waxa aan rabno hadda ayaa ah inaan gaadhsiino ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya in iyagu ay maareeyaan sifaynta kooxdan. markaas kadib ayaan ka tegi karnaa. Mar wax laga weydiiyey waxa ka jira warbixino ay qoreen qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadanaha oo sheegaya in duqeyn cirka ah oo ay Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dhinteen 10 ruux oo rayid ah oo ay ku jireen 3 carruur ah, ayuu General Waldhauser ku jawaabay sidani. I'm sure you're referring to the incident in Berir. waxaan hubaa inaad tix raacaysa dhacdadii Bariire. halkaasi dagaal toos ah kuma aanaan lug yeelan, laakiin waxaa jiray khasaare kaasoo aan islamarkiiba noo kala caddayn. waana waxa marar badan dhacay dhowr jeer oo aanu weeraro cirka ka fulinay Soomaaliya. baadhitaan ayaan arrintan ka samaynay. arrinta la sheegay ah in dumar iyo carruur ay ku dhinteenna ma aha wax dhacay. baadhitaankuna halkaasi ma gaarin. waxaanu aragnay warbixinno ay warbaahintu ka qorayeen. markaa haddii aad ka jawaabto qodob walba oo warbaahinta ku soo baxa, wakhtigaago dhan waxaad ku dhammaysanaysaa ka jawaab celin waxaan run ahayn. sidaasi darteed, si aan arrinta u kala caddayno ayaa waxaan go'aansannay inaan baadhitaan saxa ku samayno, waxaana hadda socda baadhitaankaas. ciidanka Mareykanka ee ka howlgala Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ayaa ka taageera ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinacyada tababarka iyo tasiilaadka. waxa kale oo ay iska kaashadaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya. bilooyinkii dhawaa waxa ay Soomaaliya ka geysteen dhowr weerar oo dhinaca cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen fariisimo ay Soomaaliya ku leeyihiin ururka Al-Shabaab.